mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayay maanta halkan uga bilaabanayaan waayihiisa filla Soomaaliya oo uu ku shaqeyn doono noqon doonta halkan xafiiskiisa rasmiga ah iyo waliba hoyga uu ka degan yahay caasimadda dalka madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu madaxweynaha cusub ee jamhuuriyaddu si rasmi ah uga wareegay xafiiska dalka looga arrimiyo madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horeer jooga madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud warbaahintana si wada jira ula hadlay ayaa tilmaamay inuu ku wareejiyay madaxweynaha jamhuuriyadda dhammaanba xogaha iyo galalka hay'adaha kala duwan ee dawladda si gaar ah wuxuu u tilmaamay ciidamada qalabka sida gaar ahaanna ciidamada ku maqan tababarada kala duwan ee dalalka caalamka lagu tababaraya si gaar ah dalka Eritrea madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shacabka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta dawladda ayuuna ka dalbaday inay si dhow ula shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee dalka mudane xasan sheekh maxamuud si qaranku ugu sii tallaabsado horumaro iyo guulo hor leh mudane madaxweyne maantana waxaan kugu wareejiyay sidaas oo kale xog aad u fara badan iyo faylal aad u fara badan oo ay ugu horeyso xogta ciidanka xooga ama ciidanka qalabka sida guud ahaan khaasatan waxaan rabaa inaan xuso ciidamo waxaa jira aad u fara badan oo tababar noogu maqan ay ugu horeeyaan ciidankii ugu badnaa aan dibadda dalka dibaddiisa aan geynay oo dhan 5,000 oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhammaystay dalka Eritrea ciidankaasi tababarkoodu waxay dhammaysteen sanadkii la soo dhaafay dhexdhexaadkiisii iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saamayso mudane madaxweyne ciidankaas waa kuu diyaar waxaan kaloo aan kugu wareejiyey sida adigu aad igu wareejisay 5 sano ka hor aan dib kugu wareejiyey in badqabka khayraadka dalka uu intact yahay sidii aan ugu imid aysan wax isbedel ah aysan ku dhicin arinta badda murankeedii inay soo afjarantay ay soo dhamaatay sanadkii la soo dhaafay waxaa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinay waxaa ka mid ah hadeen cafinta iyada naftigeeda oo adigu aad soo bilowday madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo madaxweyne Farmaajo kaga mahad celiyay sanadihii uu soo daadiyay dawladnimada ayaa tilmaamay inuu u noqon doono saaxiib iyo markaasi mas'uul oo kala tashado hawlaha dawladnimada ee ku gadaaman waxa uu sidoo kale tilmaamay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu madaxweynihii hore kala wareegay galalka iyo xogaha hay'adaha dawladda sidoo kale waxa uu si lamid ah u dalbaday in shacabka Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan dawladdiisa madaxweynaha sidoo uu sheegay maanta waa maalin oo taariikhi ah oo u baahan in aad iyo aad loo xuso loona xasuusto madaxweynuhu si tartiiba oo nidaam ah ayuu igu wareejiyey xilka dukumiintiyaasha iyo mashaariicda faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadloo dhan waan la wareegay dabcan waa tartiib ayaan dib wada akhrin doonaa wada fiirin doonaa wixii macluumaad ah oo aan fahmi waayayna dabcan walaalkii waa joogaa dib aan ula noqon doonaa waa weydiin doonaa laakiin faylashaas oo dhan maanta waa ka qaaday madaxweynaha sida ciidamada amniga khaasatan waa run ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen waana wiilasheennii waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka u soo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan waa ciidan Soomaaliyeed dalka Soomaaliya iska leh qofna ma lahayn dal kalena ma laha taasi waa halkaas inaha kaloo dhanna deen cafintu way soo socotay haddana way socotaa waqtiyada madaxweynuhu uu sheegay waa waqti aad iyo aad loo rajaynayo inay ku dhammaato kuna dhammaan karto waana ka shaqaynaynaa haddii aan la yidhaha inay ku dhammaato wixii dan Soomaaliya oo dhan waa waxaynahay intaas kadib waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado madaxweynuhu waa mahadsan yahay waana oday Soomaaliyeed waana la joogaa meel kasta uu joogo ilaahay idankiisa waana la tasha doonaa waana muxuu ahaay iska warqabi doonaa haddii aan la yidhaaho madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu horeyn salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka sidoo kale waxaa intaa kadib stage-ka lagu soo dhaweeyay madaxweynaha cusub ee talada la wareegay mudane xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne Farmaajo ayaana mar kale wada jir salaan sharaf uga qaatay cutubyada ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo kooxda baanda muusiga ee militariga Soomaaliya munaasabadan sida heerka sare ah loo soo agaasimay ayaana ah astaan muujinaysa hanaanka dimuqraadiyadeed ee dalkeenna oo sanad waliba waa 4 sanaba mar sidaan oo kale uga qabsoonta halkan oo ay madaxda
ku guulaysta doorashadu ay si nabadgelyo ah xukunka isugu wareejinayaan taasi oo ah astaan u gaara dawladnimadeenna aynu uga duwannahay dalal badan oo caalamka oo qaaradeenna iyo dunida inteeda kaleba ku yaala Shucayb Maxamed Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Villa Soomaaliya